khayraadka dabiiciga waa hanti alla ku manaysto ciduu doono shidaalkuna waa qayb ka mid ah hantidaasi oo alla ku manaysto aadamihiisa dalalka Sacuudiga Norway Canada iyo dalal kale oo badan ayaa ah dalal si weyn uga faa'iideystay soo saaridda shidaalka haddaba barnaamijkeena maanta waxaa si weyn ugu faaqidi doonaa shidaalka la sheego in Soomaaliya ku jira waxa ka jira iyo suurtagalnimada in Soomaaliya ka mid noqoto dalalka shidaalka soo saarta baaritaano badan oo la sameeyay iyo warbixino ay shirkadaha caalamiga soo bandhigeen ayaa sheegaya in Soomaaliya ay ku jirto 110 bilyan oo fuusto oo shidaal ah bal maxaa arrinkaasi ka runa ma jiraan ceelal la qoday oo laga helay shidaal waa kuwa gobolada ugu badan ee looga shaqeeyay shidaalka ma ogtahay inuu jiro laba ceel oo la qoday oo la hubiyay in 100% shidaal aad u badan ku jiro magaalooyinka ku yaalaan waa su'aal aad dhamaantood jawaabahooda aad barnaamijkeena kaga bogan doontaan waxa idin soo diyaariyay halkan idin kala socodsiinaya anigoo Cabdulsaaq Gumeysatiida haddaba aan ku bilaabay marka hore su'aal ay dad badan isweydiiyaan oo ah Soomaaliya shidaal ma ku jira ama kuma jiro waxa inooga jawaabaya Abukar Xaaji Maxamed Mire oo ah qabiir ka tirsanaa xafiiskii xogta isgaarsiinta ee shirkado badan oo shidaalka ka saamiya dhulkeena su'aashu waxa weeye wadankeena batrool ma ku jira mise kuma jiro wuu ku jira waaya wuu ku badan yahay haddaba 1970 ilaa 1980 ayaa dalka shirkado badan waxay ka sameeyeen sahmin kala duwan dawladii kacaanka ee waqtigaasi jirtay ayaa heshiis shidaal qodisa iyo sahmin bal la gashay shirkadda Shell oo Holland laga lahaa oo kamid ah shirkadaha ugu waaweyn ee shidaalka qoda 1978 bishii February ayay shirkadaasi shidaal ka heshay Soomaaliya gaar ahaan Baardheere iyadoo bilowday qodida ceelkaasi la helay oo ahayd in la qodo 4000 oo mitir haddaba wixii la qodaba ceelkaasi 900 oo mitir markii dhulka hoos loo jiray waxaa soo burqaday gaaska dabiiciga bal maxaa kadib dhacay waa kan Abukar Xaaji Maxamed Mire oo inoo sharaxaya waqtigaasina goobjoog ahaa 900 oo mitir markii aanu maraynay gaas baan ku dhex dhacnay dabeedna waxay noqotay in safety la galo oo laga kala cararo ilaa la xiro gaasta waayo kambanigu gaas muu doonayna wuxuu doonayay batrool halkii aad batroolka uga geli lahaydeen baa gaas baan gaas u galay ayaad gaas u gashay batroolkii ma dhawa gaastu aan Abukar ma tan la shitaaye wax lagu karsan natural gas naaska waa gaaska dabiiciga markii la xiray gaaskii soo burqaday waxaa dib loo bilaabay qodida ceelka wixii la qodaba markay harsaneed kaliya 45 mitir oo xitaa la diyaariyay bamkii lagu qarxin lahaa shidaalka nasiib darro waxaa dhacday in wasiirkii batroolka ee waqtigaasi uu faragelidii musuqmaasuq ku sameeyo shirkadii shidaalka qodaysay kadib maxaa dhacay balaan idin kala baxo Abukar Xaaji oo Cali Xaraare arintaas uga sheekeynaya 3920 markaan 550 markaan maraynay mitir oo 45 mitir noo harsan tahay yaa waxa isku dhacay wasiirka macalinta iyo biyaha Soomaaliya xilliga iyo wakiilkii u joogay kambaniga Shell maxay isku dhacay kulliba waxaan dawladdu la ogeyn wasiirka ayuu ula tagay shirkadda shirkaduna waxay shirkad dawladeed ma ahayn kambani shirkadaha dawladahu leeyihiin waa conservative oo qodista waxaan ahayn kuma soo talagalaan ceelka inay ku baxaan marka halkaas ka bariiqatay warkaagu suu taariikh ugu noqdo dadka Soomaaliyeed ee jiilasha soo socda Abukar naam markaan cadeysid maadaama ay tahay waqti la soo dhaafay naam taariikhdu waa lama horaan waxay noqon doontaa wax meel yaalo oo dib loo eego naam wasiirka waxay joogtaa xafiiska xogta iyo isgaarsiinta adigu waa gartay wasiirka iyo maxay isku qabteen kambanigu waxay isku qabteen commission buu weydiistay kambaniga haddii kale operation ku socon maayo ku yiri ama waa in lacag la siiyaa ama waa in lacag shidaalka la soo saaro ama waa in lacag la siiyaa haddii kale operation ka aad ka wadaan waad joojinaysaa dabeedna gabadhii waxay yidhahdeen annagu kumaanaan soo talagelin kambanigan waxaa iskale dawladda fan ma bixinno iyo lacag laaluusha ceelkaa wixii ku baxa
يا أنا استيميشن كي وحبتت كي وواحد الكبيرة marka batroolkii dhamaa ee 4,000 mitir la soconayay waxa idin ka dhiman 45 mitir 45 متر ولو إنه نقص بقضاء بي هالس قطعي مركا يضع سويته حوي وحيمي نمك قحية علاش بترول كمركا القضاء كم بني قضاء مركا ومال مري وحيمي هدا kuwii qarxinay marka la ogaado in ay boqolkiiba boqol uu petrol ku jiro waxa yimaada dad la yiraahdo fellow petrol iyaga ceelka marka qarxiya iyaga sheega inta uu maanta soo saaray petrolku nooca uu yahay inta sanadood ee uu production-ka inta la eg samayn karayo nimanka sheega oo fellow petrol loo jiray way keensadeen qalabkoodii oo qaali ah oo habeen haday u hoydaan meesha aan kambariyadu xamilin way yimaadeen inay ceelka qarxiyaan oo production la bilaabo way nasiib darro joojiyana lagu yiri amar baan lagu sii way halka markay maraysay Holland waxay kala soo hadlay nin madax ah oo executive secretary-ga Shell Holland wuxuu yiri waxaad ku tiraahdaa ninka company manka ay meesha jooga labada telefoon waxa horeeyay kanika madaxda ee Holland iga soo diray ayaa soo horeeyay wuxuu yiri waxaad ku tiraahdaa ceelka waxa loo bixinayaa Vortex 1 in Africa way بعدير وان لما يلهدو فورتكس وان بالي هذا فورتكس وان سيدا عن تاريخ وهي وحكي اللي بدا النورد في اسكتلاند وعيل وبديه او بترول كيس وبديه هي marka Vortex 1 baa lagu mataanay oo Scottish ay leeyihiin ha marka taa waxa loo jeedaa sida ceelka Vortex 1 ee Scotland ka dhisan uu shidaalka u soo burqado shidaalka soo badan yahay ayaa kan baar dheereen u badan yahay way ka soco markii shirkadu ka baxday dalka dawladdu waxay heshay xogtii wasiirka iyo musuqii uu ku dhaqaaqay kadibna waa la eriyay haddaba ceelkaasi baar dheere ugu dambeyn rajadiisa in shidaal ku jirto intee la ekeed Abukar Xaaji baa mar kale inoo sharxaya rajadiisuna waxay ahayd boqolkiiba boqol ayay inta kadib waxaa jiray shirkado kale oo dalka ka qoda ceelal qaarkoodna la hubiyay in boqolkiiba boqol shidaal ceegago waa kan Abukar oo mar kale inoo sharxaya percentage-ka am celcelis ahaan inta ceelalkaasi looga shaqeeyay shidaal Soomaaliya waxa laga qoday 5 ceel waxa ka horeeyay 2 ceel oo anigu aanan arkin oo joogin ceelna Kismaayo area laga qoday 72 meelaha 73 ceelna gaas buu ahaayo afgooyaa laga qoday labada ceel maan lugay laakiin shanta kale waan ogaa ii sheeg hadda shanta kale waa baar dheer ceelka baar dheer way hol ha way kariswan oo garoowe 16 kilomitir jirta soo saddex ceelkii lughaya laga qodayay ee ay Chevron qodaysay way iyo ceelkii aan mudul baraawe ka qodnay shantaba ceelka lughaya runtii wax badan ma aanan joogin waayo dagaal baa markiiba nagu qabsaday markii waa nalaga qaxiyay aniga iyo gaaladii laakiin rajadiisaan ogaa oo waxay ahayd 95% 95% kalughaya waatay ceelka hol kuwajhan male oo u buuxa gaaladu horta waxay samaysaa waa dafil midh marka hol waa tif weeye ceelka garoowe wax yar markii aanu qodnay oo 2500 feet oo wax yar oo aan weligayba arkin ceel saasa waxaanu galay saliid yaacday oo dhimatay ceelka mudul baraawe daray hol buuxa san kuma ana arag saliideed shirkadihii kala duwanaa ee sahminaya ceelashaasi ceel walba ay hubiyeen isla markaana shidaal ku jiro waxay ka taagan bir lagu garto waxayna howshooda dib u bilaaban doonaan markii la helo dawlad Soomaaliyeed oo hanata dhulkeeda
baddeeda iyo hawadeedaba. Shirkaduhuna waa kuwa weli heshiis kula jira dalka. haddaba waxaan idiin soo gudbinayaa muuqaalka mid ka mid ah ceelashaasi la hubo in 100% shidaal ceegago oo ay bir ka taagtay shirkadii sahmise oo iyadu rajaynaysa in markuu dalku hagaago dib howsheeda u bilaabato. wuxuuna ku yaalaa degmada Holhol oo dhacda waqooyiga Soomaaliya gaar ahaan Qaatumo. waxa ugu dambeyn ilaa hadda la aaminsan yahay in ceelka Baardheere yahay kan ugu shidaalka badan Soomaaliya iyo qaaradda Afrikaba inta ilaa hadda la baaray. waxaa dhici karta in la helo kuwa kale oo aad u badan. qabiiro si hordhaca u sheegay kheyraadka shidaalka Soomaaliya ayaa aaminsan inuu yahay 110 bilyan oo fuusta, taasoo u dhiganta ama la micno ah in qof walba oo Soomaaliyeed ka heli karo sanadkii lacag dhan $100,000. kheyraadka bariga gaar ahaan shidaalka ayay intaasi ahayd. waxaan barnaamijkan mid ka xiga uga hadli doonaa kheyraadka badda iyo baaritaanadii la sameeyay. waxaa idinka codsanayaa in barnaamijkan aad sii faafisaan ama aad sheergaraysaan si dadkeena iyo dawladeennaba kheyraadkan uga faa'iideystaan. waxaa idin soo saaray oo halkan idinkala socodsiinayay anigoo Cabdirasaaq Gumaysi Diida. waxaan idin leeyahay dalkeenu cadawga ku xirooba. nabad diino.